دونت تاريخ الورى بدمائي، وحميت أرضي وافتديت سمائي. دونت تاريخ الورى بدمائي، وحميت أرضي وافتديت سمائي. ما زلت أحتضن السلاح بقبضتي، أفلا ستغمض أعين الجبناء، أفلا ستغمض أعين الجبناء. يا أمة الإسلام دين محمد هز الملوك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu hore ciddii joogtay iyo ciddii dhegaysatayba 6 muxaadaro oo ku saabsan sidii tataarku ay u baabi'iyeen dhulkii muslimiin iyo 3 dowladood oo waaweyn oo dowladihii muslimiinta ka mid ahaa. muxaadaradii 7aadna waxaynu kaga warannay dowladdii ugu dambaysay afraad ee dagaal la geli doonta iyo wadcigeedii siyaasiga ah iyo qaabkay u dhalatay ama qaabkay u jirtay, oo ah dowlat almamaalik. maanta 2 muxaadaro kale ayaa waxaan kaga warrami doonaa markaa qaabkii loo celiyey ama se loo jebiyey dagaalyahanadii tataarka, iyo weliba qaabkii markii dambe dowladihii tataarku ay u islaameen. waa 2 ariiq oo culamo muslimiin oo kala gedisani martay. qolana ariiqu dacwa bay u martay oo dowladihiiyo sidooda u jira islaamnimo u bedeleen. qolana ariiq iljihaad bay u martay oo tataarka horu socodkiisi iyo wixiisii bay joojiyeen. 2da qadiyadood baan rabaa inaan soo bandhigo. ta koowaad marka oo dariskani uu ku saabsanaan doono waa dagaalkii loo yaqaanay caynu jaaluud. caynu jaaluud waa magaalo ama waa meel goob uu ka dhacay dagaalka kani. waxaynu soo tilmaamnay masar iyo daraabaadkii siyaasigee ka jiray iyo duwal ilmamaalik ama mamaaligta dowladdoodii markay samaysantay iyo wixii dhab ka soo dhacay ee bilowga ahaa. waxaynu soo marray sanad gudihii iyadoo uu dhintay boqorkii hore najmudiin ayuubiga ahaa, la dilay inankiisii tawranshaah, la dilay ciizadiin aybek oo madaxweynihii ku-xigaya, la dilay shajaratu dur oo gabadhiiyana madaxweyneha noqotaya. waxaynu soo gaadhnay iyadoo uu maamulka gacanta ku hayo nin la yidhaahdo qutus ama qutus la yidhaahdo, maxmuud ibnu manduud. qutusna lagu naanayso ama loo yaqaano. masar waktiga kan markaa masraxeeda daakhiligii saas u ekaa oo tawraad tiro badan ayaa dhexdeeda ka socday. dhan kale markaad ka eegto waxaynu soo maray iyadoo ciidankeedii maadaama inqilaaba uu isku dhigay uu gudihiisa iska dilay, oo ciidanka qaybihii aan odhan karno way ugu xoog badnaayeen ay baxsadeen. waa mamaalik albaxriya nimankii la odhan jiray najmudiin uu sameeyey, ay ka baxsadeen waddanka kadib markii la dilay guddoomiyahoodii ama hogaamiyahoodii. jeyshi masr markaa ama ciidankii waddanka muslimiintii uu lahaa wuu daciifay maadaama uu dhexdiisa iska dilay oo mucaziyiintii iyo ay isu dileen mamaalik albaxriya. masraxa siyaasiga khaarijiga haddaynu eegno ama siyaasadda dadkii ku wareegsanaa, waxay ahayd masar cilaaqaadka ay la leedahay cidda dabadda ka xigta oo dhami waa cilaaqaad colaadeed. xaggan waqooyiga cidda rasmigee ka xigtay
وفلسطين iyo لبنان iyo meelaha imaaraadkii yaryaraa ee masiixiga tirada badnaa ee caka ay u xoog badnayd caka suur sayda bayruut trablus waxaasoo dhamme antakiya ilaa laga gaadhayo xeebtaa dhinaceeda waxaa ku taxanaa imaaraat saliibiya ama masiixiya ama nasaaro ah oo ah kuwii ay ku soo degayeen ama meelihii ay qabsadeenba markii ay yurubiyanku soo duuleen 7 duulimaadii hore ee kii u dambeeyey aynu ka warannay ee ay masar ku soo duuleen dhanka kale markaynu eegno waktiga kan duwalkii ayuubiga ahaa ee ka jiray shaam laftoodu colaad bay u qaadeen nimankan mamaaligta ee qabsaday waddanka kan oo waxaynu sheegnay dhowr goor inay ku soo duuleen markaa masar cidna lama heshiis aha dowladda ka dhisani meesha intaa waxaa raacda dhibaato dhaqaale oo dunida waxaa la yaqaanaa meel kastoo dagaaladu ay ku bataan inay ku dhacdo maxay dhibaatooyinka dhaqaale inay abuurmaan marka masar gudaheedana dhibaato dhaqaale oo daran baa iyana ka jirta su-aashayn markaa isweydiinaynaa waxa weeyaan masar waxaa duulimaad ku soo ah aqwa dawla fi lcaalam holaako oo lagu qiyaaso ciidamadu wato 400 kun oo askari inuu wato waxa ay ciidamada holaako hordhacoodu degan yihiin markaa magaalada ghaza falastiin xuduudan masar ilaa halkaasoo haysta oo inta kale uu ka soo gudbay waxaynu u baahanay inaynu istusino oo maarayno oo ah mawduc alcibra qisada oo dhan dhulkaynu uga soconay ka mid ah siduu u maareeyey qutus xaaladda nooca kana gudihii oo is haysta dabadiiyo dowlaadkii ku dhadhowa oo la wada cola ciidan aada u xoog badan oo dowlad weyn oo ajanabiya soo wado dhaqaala burbur haya intaasoo ku kulansan ayuu qutus madaxnimada qabta qutus wuxuu ku talagalay inuu jihaatamo oo wax iska dhiciyo laakiin jihaadku maaha frontkoo la tago uunuu qori la qaato wuxuu u baahan yahay siyaasa cadiima ka horeysa walidaalika waa deriska ugu muhiimsan meesha tani aan raba inaad si fiican u fahamtaan qutus khuطuwaatu tagyiir waxay culamadu ku tilmaamaan buu sameeyey tallaabooyinkii isbedelka kow siyaasaddiisii koowaad wuxuu ku bineeyey waddankan dadka degan inuu midayn karo wailaa hadday kala tafaraaruqsayin cadow iskama celin karaan sawaa koox jihaatamaysa ama ha joogtaa mayay joogin waddankan muslimiinta ah ee masar ah haddii siyaasiyiinteeda iyo ciidamadeeda iyo dadkeedu ay ishayaan iyaga gudahooda iyagu ay col yihiin oo isdilayaan oo aan soo sheegnay madaxdoodiina intaa laayeen inuu intaasoo ninoo madaxii inqilaab ku dhintay fawran shah ciizadiin aybek maxaa la yidhahdaa shajarati dur maxaa la yidhahdaa janankii ciidanka haystay farisudiin aqtaay waxaasoo nina wac iyo dumarba waxaynu sheegnay in dil ay muteen isagu markaasi wiilkii yaraa meesha ka inqilaabay oo qabsaday inuu dagaal galo aqwa dawla fi lcaalamna inuu iska dhiciyo taasi waxay keensatay markaas inuu siyaasaadkiisa oo dhan dib ugu noqdo awalan wuxuu ka bilaaba istiqraar alwadci adaakhili waddanka gudihiisa sidee siyaasadiisa loo sugi karaa wuxuu isugu yeedhay waddanka umaradiisii iyo qaadadiisii caskariga ahayd iyo dadkiisii waayeelka ahaa iyo culamadiisii buu isugu yeedhay waa waddanka wixii madax ahaa ee telinayey ayuu shir isugu yeedhay dabeetana qitus wuxuu kala hadlay qadiyadda tan wuxuu ku yidhi markuu soo ururiyey inii ma qasadtu ila an najtamica calaa qitaali tatar waxaan idiin sheegayaa buu leeyahay dadyawiina kan madaxda iyo waayeelka ahi wiilkanaan meesha ka riixay inqilaabay ee aan qabsaday dan kale kama lihi ilaa iyo inaynu u midowno
tataarka inaan iska dhicinno mooyaane waxaanan ogahay buu leeyahay dowladnimo inan yaroo caruuri haystaa inaanay wax dhicin karaynin walidaalik haddaa ila midowdaan waynu ku midowno inaynu tataarka iska celinno waxaan ballan idiin qaadayaa sultadu inay halkaa iga taallo oo ciddii idinka aad doontaan maamulkaa u dhiibataan yani Qudus wuxuu leeyahay anigu ma yihin nin madaxnimo doonaya waxaana haysan nin raba inuu u taagan yahay inuu muslimiinta wax ka dhiciyo maadaama ay qadiyadu caynkaa tahay hadda waxaan u baahanay buu leeyahay inaynu dagaalkaa gallo maalintaynu guulaysanana cidday ummaddu u garataa ay madaxu noqoto aqiimuu fi sulta man shi'tum Qudus qataayaadkan culimadu waxay leeyihiin muslimiinta ahi cadaalad iyo sidq ayaa lagu tuhmayaa ma ahayn munaafiq munaawara siyaasiya inuu dadka ururiyo inuu ku dagaal galo kursiga ku xajistan inuu yaallo ma ahayn asbaabo badan oo taariikhiya culamadu sharxaan daraaddeed laakiin waktigoo yar waa ka gudbaya waxaa kaloo macruufa qiyaadada dhabta ahi qaa'idka marmuuqa ee la yaqaano hoggaanka rasmiga ahi waa hoggaanka xaalaadka azimaadka ummadda ururin kara yani waktiga dhibtu jirta iyo azimaadka qofka maca alazma ummad hogaamin kara o ururin kara waa qaa'id dhaba ninkani runtii sifaat alqiyaada oo dhaba buu watay madaxdii iyo umaradii iyo culammadii iyo dadkii waayeelkaa wuxuu kula heshiiyey inuu meeshaa ka daadegayo ciddii la rabana loo doorto saas danta uu leeyahay tahay inuu tataar la dagaalamo wuxuu kaloo dib ugu noqday dowladdiisii wasaaradii iyo kuwii uu arkayay inaanay barnaamijkan xamili karin wuu casilay waxaa ka mid ah ibnu bintilaaciz nin la odhan jiray oo ahaa wasiiradii shajaratu durri gabadhii la odhan jiray ku dhowaa wuxuu ku bedelay wasiir la yidhaahdo zaynadiin yacquub ibnu cabdirafiic wuxuu ogolaaday raggii mamaaliki albaxriya ay hayeen nin ka mid ah inuu ciidamada u daayo aanu ka bedelin waa nin isagana la yidhaha farisidiin aqtaay asagiir alkabiir waa kii la dilay isku magac laakiin waa nin kale oo labaad qiyaadadii ciidanka inuu hogaamiyo bacdi ru'uusi alfitan ama nimankii madaxda ahay inqilaabada wadooday qaybo ka midana wuu xidhay qodob labaad buu sameeyey oo uu dagaalkan ugu diyaar garoobayo qodobka labaad ee uu dagaalkan ugu diyaar garoobaya waxa weeyaan alcafwi alxaqiiqiy inuu yidhaahdo ummaddu hayse saamaxdo waa rag isdilay siyaasad isku dilay madax badan kala khaarajiyey dhibi kala gaadhay kala baxsaday oo ciidanka masar ragga ugu khibrada badan leh ugu xooga badan leh waxaa ka mid ahaa ciidankii uu sameeyey najmudiin ayub ee almamaaliki albaxriya ciidankaas janankii haystay waa kan la dilay Qudus wuxuu ka tirsan yahay koox kale oo mucizay kooxdii uu sameeyey ciizadiin aybik ciidankaasi raggiisii ninkii ugu khibrada badnaa baan odhan karnaa ee waktigaa noolaa bebrus ninkii la odhan jiray wuu baxsaday dimashq buu tegey naasir yuusuf buu la joogaa qolyo badan oo ciidanka ka midi waa kuwii yaacay ee boqorkii cabaasiyiintu dhexdhexaadiyey ee la yidhi ghaza iyo agagaarkeeda iyo meelaha falastiin ha degaan badh waddanka dhexdiisa iska joogaan laakiin waa ragga ay ragga colloobeen ee aan waxba gacanta ku haynin Qudus markaa wuxuu yidhi waxaan rabaa ciidankii mamaaliki albaxriya dhammaantii inuu dib u soo noqdaa ciidankaasi inuu dib u soo noqdaa khatar wuxuu ku yahay kursiga Qudus bale xaqiiqo taariikhiya haddaan sheego iyagaa dilay akhirkii bebrus laftiisaa dilay iyo koox watay laakiin Qudus inay khatar isaga iyo dowladdiisa iyo naftiisu gasho iyo in muslimku khatar galo wuxuu qaatay intiisu khatar gasho oo muslimku uu badbaado yani Qudus wuxuu u taagan yahay inuu mamaaliki albaxriya uu ka xoog batay oo sidaa kaga takhalluso oo kursiga kan haysto laakiin ma iska dhicin karaa markaa dowladdii tataarka ahayd wuxuu ka doorbiday
in isaga kursigan uu khatar galo bale uu aqbalay inuu kaba tanaasulo haddii ay muslimiintu isku raacday inuu tanaasulo wuxuu aqbalay inuu tanaasulo isaga iyo kursigiisuba inay khatar galaan laakiin faa'iidadu ay maxay tahay faa'iidadu ay tahay muslimku sidii uu guulaysan lahaa saa daraaddeed kafaa'aadkii caskariga ahaa jananadii iyo raggii ciidanka ka tirsanaya askartii mutamarisiinta ahayd qaadadii kuliyaat alxarbi ka soo baxday ee ishayeen ayuu yidhi dhammaantiin dib u soo noqda waa laydin cafiyey waa niman khatara nimankaa uu soo celiyey laakiin waa nimankii louisa taasic boqorkii faransiiska iyo ciidankiisa 700 ee safiine u watay waa nimankii ciidanka intay dabar gooyeen maca boqorka soo qabtay waa rag aan looga maarmin dagaalka tataar saa daraaddeed kursiga khatar ha gala buu qaata alcafwu cinda almaqdira bay culammadu yidhahdaan waa ammaan isagoo kursiga fadhiya oo ka xoog batay ayuu aqbalay dhammaantood inay soo noqdaan weliba waxa uu garanayay nimanka kani waxay ku kala firdhadeen waxaa la yidhahdaa qaarkood salaajiqatu ruum bay u tageen turkiyay qaar galeen qaarkood urdun boqorkii turk meesha la yidhahda haystay bay u tageen qaar dimashq bay joogeen wixiiba dib bay usoo noqdeen bale madaxdoodii uu si fiican usoo dhoweeyey si uu dagaalkaa ugu diyaar garoobo alqaa'id bebros ruknudiin bebros ninkii la odhan jiray oo isagu waa nin muslima iimaan badanina ku jiro dagaalyahana waayeel khabiir ku ah dagaalka ah dagaaladii qudus lagu xoreeyey raggii ka soo qayb galaya ee najmudiin iyo wakhtiguu qudus xoreynaya waa jananadii ciidamada hogaaminayey waa labadii janan ee louis iyo ciidankiisii jebiyey waa nin khabiira marka kan kana da-weyn qudus iyo qolada tan oo dhan wuu u yeedhay weliba waa ninkii dimashq naasir yuusuf markii ay ku soo socday hoolaakiya ciidankiisii lahaa waraan dagaal gal la yidhaahdeen waynu baxaynaa markuu baxsadeen ayuu iskaga hadhay isagu keligii ma waajihi karo firdhadkii falastiin buu isna iska galay xaggana masar raggiisii waa la laynaya waa ishayaan masarna wuu ku soo dhiiran kari waayey isagoo falastiin dhex wareegaya ayuu qudus fariin u diray uu leeyahay soo gal masar adigoo sharfoon waynu dagaal gelaynaa oo waxaynu iska celinaynaa tataarkeen weliba markuu masar yimi wuxuu u ogolaaday iqtaac mantaqati qalyubi iyo qurada tuulooyin ku xigta waxaasoo dhan buu siiyey wuxuu ka dhigay amiir min alumaraa ninka ishayaane firdhadkaa caynkaasi uu soo celiyey amiir min alumaraa alkibaar ayuu ka dhigay bibrisna waa nin waayeeleh dagaalyahana oo kafaa'a qitaaliya caskarinimo leh waa nin dakaa leh very intelligent ah takhdiidaadka caskariga ragga looga dambeeya ka mid ah waa nin hadduu yimaadana mamaalik ilbaxri oo dhan ay ku soo hiranayso yani waa janan laga dambeeyo waa soo noqday isna qutus waxay u muuqataa inuu yahay nin ogol khatarta naftiisa marka koowaad laba had iyo goor dadka madaxda ahi ma jecla nin kaloo waddanka ama ummadda dhexdeeda magac iyo maamuus ku le inuu dhinaciisa taagnaado waayo dadka madaxdii waxay jecel yihiin inuu alwaxiid noqdo ama urur yar ha haysto ama dawlad ha haysto ama kan ha haysto in laga garab hadlo ma jecla waa afraad yar dadka aqbala in qaada ay ummadda ku dhex jirto aan isaga ahayn waa dad yar walaa ururo islaamiya ha noqdaan walaa ururo kale ha noqdaan madaxdu waxaad moodaa inay cadaadiyaan inay soo baxaan quwa kale qutus waa diraaska aqbalay buu ka mid yahay markaasi dad la loolami karaa ama magac iyo maamuus ummadda kule inay ka dhex muuqdaan walidalika ayuha alikhwa waa inaad garataan qadaaya siyaasa maaha macquulaad qura maaha anaa garle iyo anaa xaqle iyo anaa caynka leh waa qadaaya kabiira u baahan qofku inuu jawaari hadduu ummad rabo inuu hogaamiyo ama wax bedelo inuu dhul badan wax ka eegaabay u baahan tahay inuu qiimeeyo
shararka siduu u kala dooranayo mar baan khayrba meesha oo inaad shar dooranaysaa siduu shararka u kala dooranayo waa yeel garan kara waa inuu noqdaa qof laa ballaadhan oo dadka cafiyi kara beraa lay dilay ama beraa la dhacay ama beraa kooxdayada laga soo horjeestay ama beraa kooxdayada lacay ama beraa kooxdayada lala dagaalamay dabeeto dadka la heshiin mayno wax dad lagu hogaamiye maaha walidalik qudus wuxuu qaatay bulshadii muslimiinta aydee masar deganayd iyo wixii raacaba bishaakilaadkooda kala gedisan iyagoo wata inuu mideeyo qudus marka kan haddana wuxuu u baxay qadiyo saddexaad baa la yidhaahdaa oo ah asiyaasa alkharijiya siyaasa alkharijiya qayb waa muslimiin intii aan weli la qabsan sham oo kale nimankii ayuubiyiinta joogay qaybna waa masiixiyiin imaaraadkaasi xeebaha ku taxan jooga ayuubiyiinta sham jooga waa nimankii la colka ahaa dawla almamaalik ee u arkayey tawraan shaah iyo inay dileen ee intaasoo duulimaad ku soo qaaday bale waxaynu ka warannay qudus laftiisa inuu laba goor ku soo duulay muqitadiin cumarkii la odhan jiray oo laba jeer celiyey waxaynu hore uga soo warannay cizadiin aybakii lagu soo duulay oo uu celiyey yacni imaaraadka sham ka jira iyo masar dagaal baa udhaxeeya oo intaasoo goorba ayuubiyiintu soo duuleen iyagoo masar ku duulaya laakiin qudus wuxuu qaatay go-aan ah nimankaasi inuu heshiis la geli karo waa nimankii mamaaligtii baxriga markay carartay dhammaantood soo dhoweeyey ee weliba rabay inay kula soo dagaal galaan dib ugu soo dagaalgeliya meesha tan nimankan uu rabo inuu xidhiidhka la sameeyo waxaa ka mid ah baqdaad markii la qabsaday qaar baan xagga tataarka u duulinay masar ku soo duulo ayuubiyiintan ka mid ah iyadoo baqdaad la haysto caasimat alkhilaafa alislaamiya ayuu tataar ciidan kuma saarine wuxuu ciidankiisi ku soo saaray masar inuu qabsado iyo dawlat almamaalik waxaas oo dhibi iyadoo jirta ayuu qudus wuxuu ka fekeray islaamkii waa kanoo saddexdii dawladood ugu waaweynaa jabe waxaa hadhay masar sidee islaam loo badbaadin karaa ma aha sidee kursigiisa loo badbaadin karaa taasi waxay keensanaysaa dad muslimiina oo cadow kuu ah ama aan kula koox ahayn ama mararka qaarkood xagga gaalka u janjeedhay inuu isku dayo inuu ka soo jiito ama ka soo kaxeeyo ama ugu yaraan inuu muxaayidiin ka dhigo muxayidku waxa weeyaan dhexdhexaad inuu ka dhigo oo isaga iyo tataarka isu daayaan caqliyaadka maanta noole waxay odhan lahaayeen iyagaa murtadiina ka bilow saxankaa maaha ama caqliyaadka maanta jira waxay odhan lahaayeen gaalka ku-xiga un ku bilow oo qoladan kristanka iyo meeshan ka bilow tataarku wuxuu arkaa waxaan oo dhan khatar ka weyni inay jirto ayuu qudus u arkaya saa daraaddeed mushkilaadku way u kala ratiban yihin iyadoo acdaa ay u wada yihiin isaga qoladan kristankii waa u acdaa oo kuwa dagaalka hadda kala soo baxeen ayuubiyiintan muslimiinta sheeganaya waa u acdaa oo kuwa intanoo goor ku soo duulay tataarkuna waa u col oo intanoo gura ka soo guuray saddexda colba mar lama wada dagaalami karo si awgeed wuxuu ku talagalay tataarka inuu colnimadooda u daayo iska dhiciyo kristanka inuu heshiis la galo oo ay nabadgelyo un isa siiyaan kuwa muslimiinta wuxuu ka soo jiidan karo inuu ka soo jiito oo safkiisa uu ku soo biiro siyaasa alkharijiya saasuu ku bineeyey dabeetana waraaq buu diray waraaqda koowaad wuxuu u diraya annaasir yuusuf dimashq kii haystay oo markaasa ugu xoog buuran ah ayuubiyiinta waraaqda wuxuu ugu qorayaa niyo waxaan rabaa buu leeyahy masar iyo sham inaynu midayno oo cadowga adiga kugu soo socdee kugu soo horeeya aynu iska wada dhicinno waa intaan dimashq la qabsan dimashq iyo xalab buu ka talin jiray intaan la qabsan cadowga inaan kula dhiciyaa baan rabaa labada wadanna intaynu isku darno adigu madax ka noqo laakiin gaalkaan la wada dagaalano waraaqdu u qoray wuxuu ugu qoray baa la yidhi wain ikhtartanii khadamtuk wain اkhtarta qadimtu waman macya min alcaskari nujdaة laka calى alqaadimi calayk fain kunta la ta'manu xuduuri sayartu laka alcasaakira صuxbata man takhtaar
حليه هداد أقبشه نائب باكو نغنيا وكو شقينيا دولة دادية كو ديبيا هداد ربطه أنا قو عيدا كيغا وطان كو إيمانا يهلكاسان كالا دفاع قليا مصر سوغي ما ينت الله إيمانا يه شام بان كدقال قليا أنا قو عيدا كوطان هداد أنا يهيغا شكسان تيبو يري اسكو درسو عيدا كودنا انكو صادرو عدا دادو دونتا مدح uga dhigo ciidankii Masar joogay waan soo diraya Shaam ha ku yimaado adiga ha ku difaacaan waliba cida doontana madax ka dhig bulay ciidankaasi oo ka hayso Nasir ma aqbalin midnimada uu diiday midow marraba buu yiri وابو اسحان بابورو وحداني قابا دقالما محان عدو لما دوبيا لكن كوحدة دقالان تما هين مركي حلب لقف صدي ايتاق الوسع دوادين هو عرر هاتينو تاريخ دي سفرة وغصور رني سيدو ورد يكل بميلو قليي ميل يرو جفر ليرادا صحارا إن هولاك عيدا مديشي انت كو قبطين هولاك الله ديري نصيب درة لكن انتي هولاك لقسي ودي ايو قطص شوتش بيعيد مضي تطارك فردت كودي با يستقع هولاك وتقي هولاك ديبو سوع ليو يريك روا خاين كو شقين كريا ماشي مدح وقدقو استقع ديب الله صوضه ايا فردت كي عيدا كوشبيي قطص فردت كودي تطارك يو عريسا ايا عدلك هلا يضو مدح نما الله صوضه كو يسجل وقت تخلص يستقع أيا كانت ناصر وجيد دابا تنوع عرر ناصر كاسي سبو سياستكم مقوليسا شعب كيسي عيدا كيسي نما دفاعي آخر كي مركو مرأي عيدا مديسي قيبا كميدي مركي سوى قادين غزية مالها كان إيوانو ساقو الله سعن بيو قالين أي قدسو قالين صاحب حماه ماشى اللي يرادا نينكي هيستي الامير منصور ايو قطس وراك لا ودره ويدي ورا نمك الله ودا دغالنا كاسي و سو اقبلay waxba kama qabo buu yiri mid saddexaad buu la xidhiidhay المغيث عمر وكرك اردن meel kamid nin haystay oo mar horena yiri waan dagaalamaya laba jeerna mu ku soo duulay Masar laba jeer oo horu Masar ku soo duulay waan kan idin markii la qabsaday Baghdad buu isagu duulimaadka xagga ku waday laba jeer buu kaasina wuxuu aqbalay waan anigu adigana ku raaci maayo tataarkana raaci maayo iska dhexdhexaad baan ahaanaya al-Ashraf al-Ayyubi kii la yiraahday ximis haystay kana waraaq uu diray kaasina qutus si toos uu soo diiday isagu wuxuu yidhi anigu safka hoolaakan ku biiraya dowladda xoogga weyn la dhankeeda ayaan raacaya الملك سعيد mid la odhan jiray laqabkaa haystay xasan ibn cabdilcasiis baniyaad ninkii xukumi jiray kaasina wuxuu u galay isaguna jeeshi tataar natiijadu waxay noqotay حما نكي هيستي دبلوماسية دي قطس واقبلو يساقو وحولي واقو صبيري كي حلب يد مشق هيستي يساقو واكي بحصدات شبي لكن اتنا عيدا مدي سوحي كهذا اسكاق عربي او ينقو بيري مغيث نكا اللي داهدو كاسي نوحولي انقو دحدحات بان نقونا يادك ييجا طول راعي مايو لبضان كالنا waxay ku beereen safka idan shan ayuubiyina weeyaan mid aqbalay mid cararay oo ciidankiisa aqbaleen mid yiri dhexdhexaad baa noqonaya iyo laba ku beeray xagga tataarka ku beeray qutus marka kan wadcigii daakhiliga ha uu dajiyay oo dawlad raacsisan culamadeedii askarteedii bikulli ashkaaliha iyo bulshadeediiba buu samaystay hadafku wuu cadiyey oo laba kama aha
وين وحسك دعيه ممالكتي وعفيي ويصوغ لين عيدا ماذي نفسيا بي وراحيستان أي عيدا كماركو يسوي سكون مقينيهي هي ماركو ميلو وذا تشيدا وكلا نوع العدو الخارجي وكلا صاعمي وبدنا تتارك يكون بيرين بدنا يسايكو صوب بيرين بدنا حيادي بين نغضين دول كي يرى سليبيين تهيئة وينو يمن دونا يسوء لنغمي intii uu wararkan waday tataarkuna waa soo socdeen shaam oo dhan way soo liqeen marka iyana markaa xuduudda masar bay marayaan ghazay marayaan ghaza ayuu tataarkuna soo gaaray shacabka masar waa shacab marka kan dhibaato badan oo dhaqaale soo martay tataarka iyo maxaa la yidhahaa sumcaddiisii dee cajiibka ahayd ay odhan jireen haddaad maqasho ciidan tataar baa la jebiyey rumaysan ayaa maahmaaha noqotay wixii oo dhammo mashkilada waa haysata wuxuu u baahan yahay markaa ummaddu intaanay dagaalgelin hamadeeda kor loo qaado in la dagaalgeliyo bulshada qaab macnawiya in loo dagaalgeliyo masar laakiin iyada lafteeda دكتور راغب السرجاني وحولي لبا قيمة وفي عن بيالي لبا فاليو ونكتن كو مذهب سني يبا مركا كان بيانيغي ودي وقت يركهر صلاح الدين الايوبي كهر دي الدولة الفاطمية شيعة الرافضيين وآدوا الليته هي مامولة هي ودركا صلاح الدين الايوبي واكا قفصدي marka kan culamadii muslimiintu ku soo keenay meesha madhab sunniya si fiican u faafay mamaaligtana waxaynu ku naqaanaynayeen dad culamada qadariya maadaama aynu nidhi tarbiyadoodii baa ahayd tarbiya diini iyo dad culamada qadariya rag waaweyn oo culamadii muslimiinta ee rumuusina waktigan waa nool yihiin waxaa ka mid ah sultaan alculamaa alcizi bn cabdisalaam oo marka kan 80 jira nool waa 577 kiibu dhashaan filaya waqtigan hadda dagaalka loo diyaar yahayna waa 658 kii al-Izz ibn Abd Salam marka 80 sano meelaha saadaadiisu maraysa waxa jooga al-Izz ibn Abd Salam oo ninkii ardaygiisa uu bixiyay maxay sultaan ulama ardaygiisa waa kuma waa ibn daqiiq al-Eid marka wadanka ulama joogta laga yaqaano العز بن عبد السلام ومضينا علماء توجيه سكمار مما لدي تصيا وحيابها قوشة وكيرنا إنه يكمتي بعد الله سبحانه وتعالى العز بن عبد السلام وقها عالم صنة قوادك إسلامرك مجتهدة إسلامرك وقها بينها من كل مستي بين فتوى العبادة والعقيدة والفتوى في الأمور السياسية والاجتماعية من مجتهد أبوها ويدادان علومة الشرعية عقيدة شرعية عبادة معاملات لسفي عنه يقعنا وكفت وضع لأنك كلامك الله يقنا قضايات كالسياسية من بصيرا نيروله ومفتكوا أبوها ويدادان العز بن عبد السلام سينوفهمنه شيخا كان يقيمهم بالجنة مع كل حليان لبقى الصيدين تلمامه كو عيسى بن عبد السلام مصر ومنالا غير مصر معها وانه غير دمشق بو كوكوري دمشق بو وحوك شوقي خطيب كجمعياتها قاضية مسلمين تاها مفتي الدولة داها لكن الصالح اسماعيل الايوبي من اللي الدولة الايوبية كثرة ايها وحقاطي قوانا نجم الدين أيوبي مصر هيستيق ممالك تكون الرئيين كي ممالك تسميين وكدوله دبا تنوحوا أغبالي إنه تحالف سميستو قولا كريستانين وكحيستو يستطيع يقع الله انت إسراعان يكود الدولان مصر بشرط قالت ما حيكون راعسة لبدا ما قال السيدة يا الشقيق ليدهدان الدين يا أبو لي لبدا ما قال يدكو قاطة هذا يقول الدوشان مصر
وحانا نقبل يا هبكنا إن ليدن كيبيو هبكنا إن ليدن كيبيو معنى سمينيسا ما قرنا سوف فهم كرتان وقت هوره الدولة الإسلامية والصناعات كدريده قامنيسي marka iyaga ay ahaayeen dadka hubka rasmiga ah fiican sameyn jiray marka wuxuu leeyahay waxaan kala ogolahay muslimiintu inay hubka idinka iibiso oo aynu ku wada duulo qoladaas العز بن عبد السلام مفتي دمشق ayaa wuxuu yiri boqor صالح بن اسماعيل mulkigiisa shakhsiga ama habuuri dhulka muslimiinta uu soo bixi karo waxaad leedahay la bixiyaaye dhulka muslimiintu boqoro waxaad adigu leedahay ma habuuri sida awgeed ma asaxaysa buu yiri waan bixiyay waa marka labaad buu yiri muslim baa lagu duulayaa hubka laga iibinaya masiixintana laa yajuusu bay'u silaah buu yiri hubka in la iibiyaana ma banaana si muslim loogu duulayna ka iibisaan hub iyaduna ma banaana buu yiri dabeetana waxa la yiri qaadinimada waa laga casilay muftinimada waa laga casilay duruusta waa laga joojiyay khudbadana waa laga joojiyay aamas waxdama ma sheegi kartid markii wax walba laga casilay ay iskaga tagay magaalada way xideen muddo xidhnaa xabsigii markii uu ka soo baxay oo wax walba loo diiday inuu iskaga tagay baytul maqdis buu qabtay بيت المقدس بس كده طلع قال إنه هالكي ساوى حقول لقاه وحخريه يسوى هالكي شوقه أيا إسماعيل في الصالح إسماعيل الأيوبي يقول هذه كريستان كوا والصعقات واللمات كي يقود الصومري شاف هنا وحكوا بيت المقدس دبتنا نقول أن السمعة هي بالشدة مقعقوله ولي وحو ربا inuu maslaxada sheekha nin buu diray wuxuu waxa ku tiraahdaa fariinta gaartay nin baa u yimi sheekhiyo meeshiisa iska joogo wuxuu ku yiri sheekh in wixii aad mansab haysato dhan lagu soo celiyo qaadinimadii iyo madaxnimadii iyo muftinimadii iyo khitaab wixii oo dhan inaad hesho iyo wasiyaada waliba dheeraad lagu daro waxa ka xiga inaad suldaanka u yara cudur daaratid سلطان كوتاغو تنكسر له ويرى عذر داره وقعنتم كدو كبوري بس انت وسمين سلطان انت وصلت سلام به خلاص الرمو دقدق بين غنيا وحول بوي دمانيا العز بن عبد السلام وحقوشه والله يا مسكين ما ارضاه ان يقبل يدي فضلا ان اقبل يده يا قوم انتم في واد وانا في واد والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وحكوية المسكين يهو إنه أنا قعنت إذا دنكدرها لك ما هي تيسة داينا دنكده أروح الله تعالى بغر كصور دوكه يسألوا إنه يمضى أنا دنكده ما ربابه كوية وحن كوي شيء يقولي إذن دنبا وصعطان أنا دن كلام الصعدة يسكوا بما هيسلبوا له يسكوا ضوحة يسكوا وضع ما هينو إذن كنا وضع هيسان أنا كنا وضع كلايان هيساية إلهي بان محادين إياه waxa idinka uu idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay de adduun baa aakhira fi sateene ilaahay intuu idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay baan waxay dhaadaan marka loo xidho dabeetana isagoo khaymad yaroo kanu baa ku jira dhinaceeda ku xidhan oo quraan akhrisanaya bay dhahdeen baa waxa uu soo galay saliibiyiintii baa waxa u yimaadeen ismaaciilkii iyagoo la hadlayo yidhi quraanka baxaya ma maqlaysaan markaasay dhahdeen haa wuxuu waa muslimiinta wadaadkii ugu weynaa ayaa halka igu xidhan waxaanan u xidhan arrimihiinuu diiday yani waa uun irhaabigii ugu weynaana waanu haynaa duwalka reer galbeed marka kii ugu weynaana xabsigii igu jiraa weeyaan qoladaas marka wuxuu leeyahy kii ugu weynaana halkuu joogaa oo uu ii xidhan yahay laakiin qolada masiixiyiinta waa qaar ka caqli badanba ninka kan waxay ku yidhaahdeen annaga hadduu ahaan lahaa qisiskayga ugu weyn cagihiisa intaanu maydhnaabanu biyihiisa cabbi lahayn bay yidhahdeen aanu xidhna daayay dadkaba ninkii cilmiga u hayay dad xidhatay annagu maanan xidhaneen bay yidhahdeen ka noogu weyn intaanu adimadiisa maydhno ayaanu cabbi lahayn nasiib wanaagse waataynu dhi najmudiin ayuub markaynu ka soo sheekaynaynay qoladan wada socotoo dhan intuu jabiyey buu bayt almaqdis xoreeyey 643 waynagii soo sheegnay in la xoreeyey bayt almaqdis
meesha dadkii lagu xoreeyey buu ka mid ahaa sheekhu markaa wuu kaxeeyey najmudiin ayuub baa kaxeeyey oo geeyey masar baa laga dhigay muftigii iyo qaadigii iyo wixii oo dhan laakiin sheekhu markuu masar yimi ayuu wuxuu u yimi niman mamaalika oo umara oo dadka xukumo oo caynkan oo uu boqorku leeyahay dabeetana haddana sheekhu masar buu fatwo kale ka soo saaray nimankan beecooda iyo maamulkooda toona laa yajuuz ma banaana buu yidhi oo sheekh maxaa dhacay waa addoommo buu yidhi cidimo xorayn manaasib alculya lidawla alislaamiya xornima u shardiya beecoodana ma asaxo weli waa addoommo buu yidhi nimankan waxba kama socdaan dawlad dhan oo meel ka talinaysu sheekhu yimi laakiin fatwadiisii haddana waxay taagan tahay wixiina kanisadan uma socdo waa la cadhooda ilaa xad ay isku dayeen inay dilaan mid ka mida amuuradii ugu waaweynaayo qolada tan baa u soo galay isagoo raba inuu dilo seefkiisa sitaa la yidhi albaabku ku garaacay sheekha inanuu dhalay baa u yimi wuxuu yidhi aabba waa hebeloo seef sita marka wuu garanayaa dee mamaaligtuna dhiiggu waa la fududaa waa hebeloo naaytiyo seeftiisiina sito hubaysan wuxuu ku yidhi waryaa aabbahaa in ilaahay dartii loo dilo wuu ka liitaaye kafur albaabku soo daa buu ku yidhi yani hadday shahaada fii sabiili illah haru dhimanayo waxaas dhib maha buu yidhi soo daa wuu soo galay markuu u soo galay sheekhu buu haddana dib u baqa sheekh maxaa saa noogu samayso war kaluu bilaabay sheekhuna wuxuu istaagay halkiisii haddaad rabtaan saasuna la yeelaya boqorkii bay gaadhay boqorkiina wuu cadhooday sheekii uu baytulquds isagoo maxbuuska kaa ka soo daaya caynkaasa haddana fataawidan bixinaya boqorka laftiisa uu ka cadhooday markii la cadhooday ciizadiin ibnu cabdisalaam wax kale ma samaynin wuxuu yidhi caynkaa markay khalaas qaadinimada iyo muftinimada iyo maamulka iyo wixii noo dhan qaata mar haddaan la ogolayn mabaadi diina intaan sheegay inay faafto waan iska tegayaa dameer uu haystay buu fuulay reerkiisiina dameer kaluu saaray magaaladana uu iskaga baxo tuulu isaga baxay wadaadku adduun laba dameer buu ka wataa laakiin masar oo dhan baa ka daba dhaqaaqaday alcizi bin cabdisalaam magaalada hadduu ka baxa baa la yidhi yaa joogaya tujaartii culamadii dadkii wixiiba waa la dabagalay boqorkii baa war loo geeyey waxa la yidhi magaaladii waa gilgilantay sheekhiina safar yani culamada dadku culamadooda way qiimeynayeen oo agteeda culamada magaca ku lahayd walidalik baa sheekhu wax ma dilin wax ma maagin waxba kalama samaynin mujarad waanu iscasilay waanu iska tegey laakiin magaaladii dhammayd baa daba gashay boqorkii wuxuu arkay in qadiyadiisuba ay khatar ku jirto isna wuu ka daba tegey boqorkiibuu wuxuu tegey alcizi bin cabdisalaam baa loo tegey sheekh soo noqo baa la yidhi wuxuu ihi soo noqon maayo fatwadaas oo fulisaan mooyaane oo maxaa see loo fulinayaa nimankani waa addoomo waa la iibinayaa suuqaan geynayaa waa la iibinayaa marka la iibiyo ragga iibsada ha xoreeyaan markay xoroobaan hadday doonayaan maamul u dhiibo markaa adugu madax ka dhigo waa madaxdii dawladdu iibinaya halkaasuu taagaya isagu anuu nimankaa madaxdaa waan iibinayaa buu leeyahy haddii aad aqbalayso sidaana waan soo noqonaya haddii kalena oo saad odhanaysaa baa la yidhi lacagtooda baytulmaalkaan ku shubaya buu yidhi waan iibinayaa dabeetana muslimiintaan ku bixinayaa danahooda guud waxay noqotay dawladdu inay khalkhal gasho iyo in la aqbalo fatwada alcizi bin cabdisalaam waxaa la yidhi waa la aqbalay wuu soo noqday madaxdii iyo umaradiiba u yeedhay kolba mid buu soo taaga ayaa gadanaya dabeetana qiimaa la sheegaa wuu qaaliyeeyey intaas siin maayo buu yidhaahdaa addoonkan dawladda alaho qiimo qaaliyuu ku iibiyey lacagtii uu ku iibiyeyna khidmaadka muslimiintu ku bixiyey maxaan u sheegayaa qisada alcizi bin cabdisalaam waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo dawladdo qura maaha waxa dagaalgelaya ciidamo qura maaha waxa dagaalgelaya waxa weyaan ummaddani waxay haysataa rasiid dad shacabkooda hadday wax u sheegaan ay shacabku aqbalayaan oo aan maamul iyo askar ku xidhnayn walidalik markii tataarka qadiyadiisii soo dhowaatay dawladdiina nin saalixi uu qabsado qutus la yidhaahda qutusna go-aankaa uu qaatay inuu dagaal galo siyaasa alkhaarijiya iyo daakhiliyaba uu nin
كجولستي نقضي إلى حد ما عيدا مديسي وحيسي ودن أرور صدي المسلمين دي دبدة شوكتي وحي وله الشيء كريا أقبل يودن وله الشيء وحي قال هذا الراعي هنا يتوس قال هذا الراعين وحلوا بهاي الشعب كان الذي يرجع اليوم يتقال كلام شعب كمصرنا وقت كان ده دقال دي فرونت جار وده كريستيان كابي كتيرين دقال دي كروسيدسكا مركا والشعب قيمة الجهاد أنا ولي أكتر كل منين الجهاد في سبيل الله والشعب ولي وأكتر كنوا لي هي قضية هل كان مركا المرة يصف وإن لأن الشعب كي مصرنا والله خطبة دي وعلماء دي والله هذا الشيء ومدي ولا دقال قليي أيه هناك وراق صادرة وراق ده وحيسو دي بي أفر من وتطار كي كميده dabeetana nimankii fususha ahaaba magaalada qaahiro soo galay waraaq bay u keeneen qutus waraaqda maxaa ku qoran bismi ilaahi السماء الواجب حقه الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك صاحب مصر وأعمالها وصائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وبادها وحاضرها أن جند الله في أرضه وهو لك شجرية أن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيده فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم رسالة تنوى رسالة دير هناك وحلي مقع إلها عرك له أي واجب طاعة ستهيب قب فرفضي يقول كي مكان سيئي يا خلق جيسا يوصل لضي بغر يهوه لماشي تشوغا ولي بعض ضومها كمد من جنس المماليك ترسني يا مصر يا انت ولا دو حكومة واحد اكتها يقول أنه إنه أسكرتي إلهي عرض إلهي بانا لقى أبورا وحي ربنا عنا وانا لقصة لضي وحن دول سوبا بيي باقو غفلا عبر قادة شو dadka kale ku cibro qaada buu leeyahay oo maxayeel amarkiina noo dhiib intaan ceebtiinu muuqan oo gafkiinu idinku dhicin annagu ku ooyo uma naxariisanno ku ashtakooda uma qalbi dabacno dhulka waanu furannay fasaadkana waanu ka tirtirnay waajib idinka orod baa idinku abuu yidhi annagana eryashaa nagu ah inaa idinku yaacadaan وواجب في نبوليه أما إنا إذن عيمضية وواجب كيسارا دولكي إذن هوين كره حقا سيفتي يدك يقلي كرسان قعنت يدا لقما بحصده فرضها يقا لقما ديريو سيفتي يدو واسدة ضنبك ورمها يقو وقوة وحشيحة قلبي يدو واسدة بورها ترد يدو واسدة عيدة قلعد يحصوني يعني ما لقى وإحنا جميع لسه عيدا لسمايستا وإحنا جماعة أنفعان بريدنا لما أقبله ويبوي حرام تاعنتين وصلانتين عليسان باد جيدين ودارتا بينسين وعقوق الوالدين كايدو كنت ربطي وعسيان كايدو كبضل كب شارست بولي ذلنمو هي مهانة markaasuu qur-aanna ku soo qoray meel kasta adiib munaafaqa jooga kuwa wuxuu soo qoraya ee afkan carbeeda caynkana soo qoraya waa udaba munaafiqiin tataar ka tirsan qur-aan bay soo istidlaalayaan dhayso warqada holaaka waxa ku qoran falyawma tujzawna cadaab alhuni bima kuntum tacmaluun وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هلاك سoo qoraya ما أنت بولي عذابك وح دلية أيها لذين وحا عمل صبيتين دراديد
كوا ظلمي السماية ماشي ونقوم دونا وقران دونا بولي ولكن وحليه وقد ثبت أن نحن الكفر وأنتم الفجر بولي واسوغت بولي أنا قلنا نقالنا إذنين فاجرين تهين وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور لكن وحنا وكين التحابي بولي الله قعنت سوح ولبكو تشيران تربدني دون أنك أكتيا ووحير بولي شرفتي أننا أكتيا دواء ذليلمو ما لملوككم علينا بغير المذ دل النمو وحانا هين بولي يام بغطويو يمكن نوها يا مشرتو وراقضا وحكو جبجبي فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا رد الجواب وكرها يقول بذننا جوابنا نخصو صادرة وريرا كوبانا ويس بيبنيون صادرة ده وحكالا لذلك مسؤولية وياه ساسو هولاك صغرة والرسالة أن دبلوماسية أقوم دولكم مركب ولا هضليان ولو ضعيف يكن الله الله يساه نوع من ماء الوجه بين الدوران وصيدا ده أسكرتوا أما ضدك السوق ولا هضلا ولا ما هضلا قفك الدولة معمولة ولو ضعيف اسكي ويرك عطي الدولة يريرو انت الدولة واويرو تقال إذا أدناها اللي بدأ الدولة ضد قولها هذا اللي يسيدي مستقبل الله رمر لها واللغة الدبلوماسية قفك ماء الوجه بالله إلى عليها لكن هناك حتى تاسك وشرته رسالة سوح ويا وضغال وحنا ويا اسديبا إذن كان وح شرط يقحل وحيسوية لمكة قطس قادتي يا أمرتي يا وزارتي سيبو سوية وحنا عيدا ما قردر ما ينوصو صعده عيدا كقردر النوار نغا النقضة عيدا كما كان عسبوه ورنغا النقضة كما كان عاد والله قصبائنا كان نقضان أنا وحي يقول مقتابو لين وحسك دعينه وخيار صعب أكبر دولة سدح دولة دولة ووين ومسلمين الصوال لقضي من تركستان الشرقية شاينا لغا صواب بلابو مسلم في شوقي إلى إيا غزي مريا فلسطين انت كده حلوحي مسلم شوقي ويكسو تخلصين حق الشيشة وانا ممكن كتخلصي تشاينا يا كوريا يا واحد دول لبد يا طبعا دول دول يريرو ماشي اكو طحن ايش يونا بيت سولقه عيدا كان طال لكن لو هرتك خيار كاين لقاطه خيار فضود ماها وهي الدوله كوريا الى بولند بكتل يعني انت ودحيسه marka kan كوريا الى بولند انت ودحيسه كتليا والدوله كهو بدل كسمعد وين عيدا كيدو سمعد بدن هايستو عيدا ما وين مسلمين والدولة الخوارزمية يو أرمينيا يو كورتشيا ما تشورتشيا يا الدولة العباسية يا يوروب يا الشام وحاصل ما يلقين قطس التي وحلية هي تحرب أيضا تقال قادة دي عيدا مدينة قنعية تقال كرة ما فضوضة لكن محو استعماله وحيد هذا لما طريقه استعماله كو وحيد ورياء ومدحني عند الله الضياء وروان تقالما يا بوش وان تقالما يا مركب بن الله يحينا عيد مدير مايو أنا ألقي التتار بنفسي أنا تتارك نفتي ذاك له التجية معها دولتي عيدا يوحدر ما يبولي أنا جو عسكرية أو تقالما يا ينفرنس كتجية وأول كري وأن المدح يدي مدحويني وضن كأنه عيدا مضى إلى ضد قال تجا لكن حليه هي ضدك الربين وقنعان دنتو الربو إنه دنتو الدون يبو الربين وضدك قنعيه وحليه وأن تقال لما يه قائد كنا هدو مدة كهر يوم هو إذا ما صعقه صحابة محاج يسين مدى بري النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدينة هبين قيل أيام لما النبي جاء سهر بوذي أبو طلحة فرس وليه أيوب الصدى فرس كورية وحبا موطة واللاد ومسجين انت وحلا صارية وضحي النبي عليه الصلاة والسلام انت يدك وسوس وبحبحيين أيو صور نقضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تراعوا وحبا عبصننا يعني أنا كور خياني ماشي دبتو كشرتي وقائد الأمة
isagu ka warkeenaya halka dhibtu ka jirto oo saxaabadiisii geesiyaada ahaa buu u soo noqday isagoo faraska wata markaasuu wuxuu ku leeyahay lan turaacu laqad wajadtuhu baxra waa xadiiskii bukhaari faraskan abu talxana waxaa sida xadiidka ibnu maaja tilmaamaya waxaa lagu yaro tilmaami jiray inuu faras gaabiyo yahay nebigu wuxuu yidhi waa bad kari orodka waxay yidhahdaan maantaa kadib lama qabanin faraska laftiisana faras dheereeya alla ka dhigay si kastaba ha noqotee qaa'idku hadduu ka horeeyo ummadda oo waxaan uu sheegayo isagu ficliyan u samaynayo ummadda way daba gashaa walidalik bu caliy bnu abi aalib oo geesiyadii muslimiinta ugu weynaa baa wuxuu lahaa marka dagaalku adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu leeyahy waxaynu naqaanaa ghaswatu xunayn markii la jabay la cararay nebi maxamed intuu ku dhawaaqay buu lahaa ana nebiy ana bnu cabdilmualib laa kadib iyadoo saxaabadiisii jabtay oo ay ahayd hadduu saxaabadu jabto inaad yaro dhuumato ama si uu samayso ayuu nebi maxamed qaylinayaa weliyooday anigu waxaan ahay nebigii alla soo diray in cabdilmualib baan aho been maaha buu nebi maxamed leeyahy alayhi salaatu wasalaam quds wuxuu rabaa markaa atarbiya bilqudwa jananadiisa iyo ciidamadiisa inuu tusiyo inay shahaadadu wax la doonto tahay inaanay noloshu wax laysku adkeeyo ahayn markay u baahan tahay inuu qofka muslimka horu maro walidalik bu wuxuu ku yidhi waan dagaal gelayaa waa markii koowaad shay labaad buu u sheegay oo wuu wacdiyey wuxuu yidhi yaa umaraa'i lmuslimiin lakum zamaanu ta'kuluuna min bayt ilmaal wa antum lilguzaati kaarihuun waar madaxdii muslimiinta ah waar in badan baa xoolihii dowladda muslimiinta cunayseen buu leeyihi maantana dagaalkaas oo nacnacaysa anigu waan baxayaa ee ninkii raba inuu dagaalamo iraac ninkii aan rabinowna waan ku fasaxaye iska hadh buu leeyahy laakiin waxaad ogsoonaataa dembigaaga iyo dembiga dumarka muslimiinta iyo ummadda muslimiinta inay adiga luguntaadatay ninka hadhayo khudbadaasuu u jeediyey khudbadiisu waa laba shay waxa weeyaan anaa dagaal gelaya shayga labaadna waxa weeyaan idinma qasbayo wixii raba inay dagaalamaan uu raaca jihaadka layskuma qasbo nebi maxamed marnaba munaafiqiinta ma qasbin bale intuu baxaaba iska hadhaan hadhowna weliyo bile maraano way cudurdaartaano wuu ka aqbalaa bale isagoo sii socdaa kolba ninka daba yimaadaa markaasaa la yidhahdaa nin baa soo socda ilaahu hebel ka dhig buu yidhaahdaa yani danka ma lahayn munaafiqiintu inay hadhaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay hadday idinla baxaan la awdacu khilaalakum ilahay wuxuu tilmaamay hadday idin raacaan munaafiqiintu inay u fasaad idinku kordhinayaan iyo mashkilad aanay wax wanaaga idiin haynin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisu mu ahayn mid dadka la qasbo la ydhaha qasab ku dagaalama iyo raaf dad askar lagu qaadaa ma jihaatamaan walidalik khudbad isagoo ooyayu wuxuu ugu gebagabeeyey baa la ydhaahdaa ya umaraaءi اlmuslimiin man lilإslaami in lam nakun naxnu madaxdii dowladda muslimiinta ahayd yaa islaamka uu halgamaya ama difaacaya haddaynan inagu difaacin buu leeyahay kelmaddaasi madaxdiisii way ka oohisay waxaanay qaateen go-aanka ah inay la dagaal galaan quds wuxuu isku dayey inay arrintu ka noqnoqosho yeelanin wuxuu u yeedhay afartii nin ee warqadda siday dabeetana afartaba madaxuu ka jaray dabeetana madaxyadoodii buu albaab ka mida albaabka qaahiro suray culamada qaar waxay idhahdaan malaa quds masalada muu asiibin waayo cinda almuslimiin rususha lama dilo dadka ergada ee lasoo diro lama dilo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxay laba nin ibnu nawaaxa iyo ibnu usaal laba nin oo la odhan jiru musaylamat ilkadaab soo dirtay musaylama nebi baan ahay buu leeyahy dabeetana nebi maxamed buu usoo diray laba ergey labadii ergey baa nebiga u yimi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam atashhadaani anii rasuulu اllah waan maqiraysaan inaan ilaahay rasuulkiisii ahay waxay idhahdeen nashhadu ana musaylamata rasuulu اllah nebi maxamed waa hortaagay waxaanu qiraynaa bay dhahay musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yihi musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yihi baanu qiraynaa
نبي قول عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسوله أنا قافوا ميي إلهي رسول كيسيبا هدان عدي ليه هدان رسول ارجع الله صادره هدان دي ليه وارد انجيل الله أبو نبي محمد قول عليه الصلاة والسلام أخت يرى ارجع اللي بدي لأبو نبي ليه قطص لكن مهما كان اجتهاد كسيك اصطبح الله مرأة أفر سيبا انتو دي أيها الباب الصغير marka kan qudus mushkilada ugu weynahaysa waxa weeyaan waa mushkilad iqtisaadiya waayo ciidan ballaaran oo la dagaal geeyo wuxuu u baahan yahay dhaqaale xoogan isaguna meesha gabigeedaba waqti yar buu saaran yahay qudus macayntu dagaalka galay macayntu guulaystay ma wuxuu dham sanad ma gaadho sanad waxlaa buu dhinta marka qudus madaxba wuxuu yahay dhowr bilood wadankiina azma iqtisaadiyada waa ka jirta fitan baa ka jiray mashaakil baa ka jiray tijaaradii muslimiinta guud ahaanba way istaagtay waa kan tataarku barigiyo wixii oo dhan qabsaday azma dhaqaaleed xoogan baa ka jirta see loo dagaal gelinaya marka saddex biloodna madax buu yahay khasanadii dowladana dhaqaale kuma jiro wuxuu isugu yeedhay culamadii iyo dadkii culamada markaa wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo waxaan rabaa dariiba tax cusub in dadka laga qaado aan dadka ku dagaalgeliyo cashuur ha la qaado buu leeyahy zakadii iyo wixii kuma filla marka cashuur ha laga qaado dadka waxhaysta si ciidanka loo hubeeyo loo dagaalgeliyo laakiin halkan waxaa joogaa nin caalim oo muftiya oo aan qaqallo cumarin ابن عبد السلام لا يراده ابن عبد السلام وحيري هدي على ودوك مسلمين تكسو دولو وحواجب كوا مسلمين تودمين إلى دقالمان وانا بنانتهي رعية دي الشعب كاين لقا قاضو واحد دقالك اللقو قاله وكبضا الزكوات يوحي لكن بشرط بويش هنتي ويدين ما يلا شرط لهره بيت المال خزانة الدولة وين شيلن كو هارين بوير دولة ولا عق هي ستطبق وحلقة قاضو صعنا سبوير خزانة الدولة كو وين شيلن كو هارين مركز لباد بوير لمن كنا الأمراء دي مدحضة إنه والبرمل كي يسولوي كدل لو جوي هو كي يذهب كي يقرب كهيستا إذا وين أدبك الله من نقطانا وحبايد كو هارين هذه مدحضة الدولة وهنتي ذا كانته خسنة الدولة waxa ku jirana la keeno markaas aan fatwoonaya uu leeyahay dadka xoolaha laga qaado iyana waa fatwo kala adag oo maradii hadda lagu soo qanciyo war dagaal gala xoolo waxa ay ugu haysateen jeeshka siiya iyada lafteedu ma fududa laakiin al-Izz ibn Abd Salam go'aankiisu waa ka waa xaraam buu leeyahay shacabka xoolahooda la qaato iyadoo aanay idinku aydan la simanin النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح مسلم كوحكة المامية فوالذي بيدي لقد طاب التوبة لو طابها صاحب مقص لغفر له تبدي زنيستي إلا الرجميي أي نبي محمد يقول له وحي توبتك أنت توبت هدو توبتك ركع عشور تقاضى إلى هي دنبقي سونافلها محسنة الذي لي توبت دي وحلقات دي توبت حتى لو قدام بالدافع يا محي كان dadka xoolahooda baata ku qaada yani xoolahooda baata lagu qaada kaanama ay ka weyn tahay maxay warku markuu halka marayo ayuu qutus wuxuu yidhi fatwada sheekha waa aqbalay ana ugu horeeya faraska iyo seefta mooyaane wixii aan hanti leeyo dhan waan ka dhaadhacay wiil oo ka daadagay waxaan hanti wato waxaan aqbalay in ciidamada lagu wareejiyo mar haddii dee madaxweynihii wuxuu haystay wareejinayo waxay noqotay umaradii iyo dadkii kalena inay aqbalaan waxay haystaan inay wareejiyo al-Izz ibn Abd Salamna wuxuu fatwooday dagaalku wuxuu u baahan yahay hantiya markaa in la bixiyo masarna sheekheeda waa daba socotaa markaa mushkiladii dhaqaalahana waxay u muuqataa in la xalilay xalkeedii la helay ciidankii waa la diyaariyey waa la dhaqaaqay waxaase markaa iyana mushkilada wuxuu qaatay go'aan ah inaanu masar gudaheeda ku sugin
waayo wuxuu leeyahay ciidanku hadduu masaf jabo meel dambe uu isku urursan karaa ma jiro marka waa inaan ku hortagaa buu leeyahy oo dhankay joogaan ugu tagaa laakiin xaggan ay joogaan markuu tagana wuxuu soo dhaafay dowlado yaryar oo badan oo masiixiyiin ah oo uu ka baqay inay ama waddankii u weydaartaan dagaal ama isagaba ay xagga dambe kaga dhuftaan intay heshiis la galaan tataarka mal camal idan ma iyagu ku bilaabaa kuwa kaleo waddadu bannaystaa hadduu waddada bannaysto kuwan ku bilaabana tataarkoo 100,000 kun oo askari haysta wuxuu gaadhayaa isagoo dhaawac iyo dhimashada sita oo dagaal la soo galay oo dhib qaba iyadoo awalba laga xoog badnaa haddana ciidankiioo soo dagaalamay inuu tataar gaadhana waa dhib badantay wuxuu qaatay caqliyadda ah inuu kuwa taxyiid alacdaa yacni nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dagaalada gelayay muu odhan gaal oo dhan baa la dagaalamaya laakiin wuxuu go'aansaday inuu quraysh la dagaalamo oo iyagaa dagaalka ku bilaabay dadka inta kalena inuu heshiis la galo iyagoo gaaladooda ah yahuud 3 qabiilba heshiis buu nebi moxamed la galay calayhi salaatu wasalaam qabaa'il kaloo badan oo carbeed heshiis buu la galay qurayshna dagaal bay isku wadeen siyaasadda islaamiga kaba mid aha nin yidhaahda gaalow cirkiiyo dhulkaba iskaga kaalay anaa kuu babacdhigaye ma aha siyaasa islaamiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu gaalo kala qaybiyo ayi mawqica aad daraasayso taariikhda islaamiga ka mid oo rasmiyana waxaad arkaysaa falsafaadkan inay isticmaalayeen raggii guulaha taariikhiga islaamka u soo hoyey qotos go-aan buu qaatay markaa iyadoo saliibiyiinta ay ishayaan iyadoo dagaalkii 7aad ay marayaan iyagoo ay ka khatarsan yihiin tataarka waayo iyagu istaytaan bay wadeen inay dhulka degaan bay rabeen oo ay kiristaaneeyaan oo mabaadi' bay wadeen qolada tani xoolaha iyo dadkaba way dhacayeen ama waa leynayeen iyagu diin iyo mabaadi'toona may wadin de xadaaraba may wadeen inde qoladan asia ka timid ee tataarka ahay laakiin waxaa khatarsanaa marka kan qoladan saliibiyiinta ah waktiga kan laakiin wuxuu u arkayey inaanay waktiga kan hadduu heshiis iyo nabad helayo inuu heshiis iyo nabadda qaato qotos markaa wuxuu u diray caka ayaa ugu xoog badan imaaraadka saliibiga ah cakuu u diray waa caka xayfa sayda suur bayruut laazaqiya antakiya waxaasoo dhami waa duwal kristan ah oo meesha ku taxaniyana waa duwal kristan oo xataa salaaxadiin alayubi uu awoodi kari waaye inuu furto wuxuu u diray markaasi rusul uu leeyahay caka waxaan idinka rabaa inaynu heshiino akhiiran markii muddo la wada hadlay waa la heshiiyey waxay ku heshiiyeen wuxuu ku talagalay intaanay tataarka la heshiin inuu isagu la heshiiyo waxay ku heshiiyeen inay hudna wada galaan 10 sannadood inaan wax dagaali dhex marin labadooda kooxood dhulkaygii waan ka imiye wixii ciidanku uu u baahdo ee raashinka iyo wixii la mida inaynu wax kala iibsano dad nabado wax kala gadanaya noqono abaalmarin haddaan intaa ii gashaan idinkana waxaan idiin samayn doonaa haddaan tataarka jabiyo fardaha tataarka ee khatarta ee aad taqaanin baan wax idinka siinaya buu yidhi idinka iibinaya kuwaasaanana wax idinka iibinaya haddaa idinkuna heshiis kale la gashaan waa heshiis tabaadul ilmasaalix cakana waa meel aada u qalcado xasiina leh way aqbaleen heshiiskaasuu la galay wuxuu bilaabay markaasi inuu ciidankiisii soo dhaqaajiyo ciidankii markii ay caddaatay inuu soo dhaqaajinayo dee kollay dad ama niyad jilicsan ama aan dagaalka jeclayn waxbaa jira askartii wax ka mid iyo waxbaa baxsaday oo markan dagaalka baxsaday qaar baa orodkii xijaas galay qaar baa yaman galay qaar baa maqrib alcarabi u cararay laakiin dadka wixii ku qancay inay dagaalamaan kuwa kani wuxun bay ka mid ahayn kuwii ilaahay lahaa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala walaa awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wa fiikum samaacuuna lahum wallahu caliimun biaalimiin ciidamada wixii aqbalay iyo shacabka wixii dagaal aqbalay iyo dadkii muslimiinta o dhan baa la soo kaxeeyey falastiin sinai meel ku taalla oo saalixiya la yidhaahdo meel bannaana ayaa ciidamadii
meelihii casaakirta iyo kuliyaadkii lagu tababarayay wixii oo dhan markii laga keenay halkaasuu isugu wada keenay marka kan waxay maraysaa waa awaa'ilu shacbaan awaa'ilu shacbaan waxaynu ognahay safar baa la qabsaday maxay baqdaad caasimat almuslimiin dimashqna rabiicu lawal baa la qabsaday haddana shacbaan baa la joogaa shacbaan buu markaa wuxuu keensaday waa wakti julay ku beegan oo kulayl ah sinay waa kulayle waktiga xagaaga waktiga kulaylka ah ayuu saxaarahaasi aqbalay inuu ka tallaabiyo ciidamadiisa waa ka soo tallaabeen dariiqo cusub oo marka kan aan lagu aqoonin dagaalka buu isticmaalay wuxuu isticmaalay ciidan muqadamo ah oo xooggan inuu sameeyo oo ciidamadiisa in badan ka horeeya muqadamada طaliicada yani ciidanka hor socda wax badan uma dhaxeeyo sida caadiga la yaqaano laakiin marka kan wuxuu samaystay ciidamo muqadamo ah oo xoogan ciidamada tan wuxuu u dhiibay ciidamadii masar ninkii ugu khabiirsanaa ayaa hogaankooda loo dhiibay oo ah Peppers ninkii la oran jiray والله أعلم وبالله التوفيق السلام عليكم دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت